qofka bini aadanka markuu dhinto camalkiisa wuu go'aa kitaabkiisana waa la daboolaa laakiinse kitaabkiisa dib dambe ayaa loo furayaa shamaa la furaa kitaabkiisa waxaa la furaa markii oo buunka khiyaamo la yeeriyo buunka khiyaamo lama mar ayaa la yeerinaa midka koowaad dadka dhan way dhimanayaan 40 sano adduunka dad iyo duunyo wax uu ka noolaahayo ma jiro 40 sano ka bacdi waxaa la yeerinaa buunka khiyaamo markaas ilaahay uu dhahayo wanufiqa fi الsuuri faidaa hum min alأjdaaثi ilaa rabbihim yansiluun buunka khiyaamo markii labaad markii la yeeriyo ahlulqubuur qabriyaalkooda way ka soo baxayaan waxay u soo baxayaan inay aadaan maxsharka ilaahay agtiis ka bacdi ilaahay wuxuu leeyahay qaaluu yaa weylanaa man bacaثanaa min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أهل القبور توحي ليهين إلهي وبلا خاذي إنو خبورتنا قصو سارايو مركز إلهي وحوليهي إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون مركبونك خيام ليريو ددك دن لسوز نوليو وحي لكل مايان إلهي أكتي سمح الشركة أي لكل مايان dadkani markay waxay qubuuraha ka soo baxayaan ayagoo dhahla ilaahay ka bacdi wuxuu leeyahay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar oo maanta yaa u sugnaaday boqortinimada yaa u sugnaaday ilaahay asaga ayaa isku jawaaba adduunka dad ma joogo lillahi alwahid alqahhar ilaahay wuxuu dhahay ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid qofka eray kuma hadlo illa wuxuu ku hadlo يعني وحي قرايان هذا القوضة رقيب يو عتيد بونك خيام ومركة لماد مركي ليريو وحي صوبحيان دبكي دم أيغو نحسن محشرك أي إيمان أيان إلهي مركز وحو ليهي واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ما أنت نفل الدلمها يوم مجرو وح أوال قد ليرنسينا يوم مجرو إلا وحات سميستين nin walba wixii samaystay ayaa ilaahay awaal marinaa qof walba kitaabkiisa waa loo akhrinaa qofkii qof oo axsaan u sameeyeen kitaabkiisa waa loo akhrinaa qofkii oo khamro cabaayo oo lacagta gubaayo kitaabkiisa ayaa loo akhrinaa qofkaasi markaasi waxaa la gelinayaa naarta qofkii zinaystay waa loo akhrinaa kitaabkiisa inuu zinaystay waa la soo xasuusinaa fanacuudu billaah qoftii oo ninkeeda khiyaanay oo ninkeeda khiyaantay xaaska ninkeeda khiyaantay iyadana kitaabkeeda waa loo akhrinaa jahannama ayaa la gelinayaa qof walba wuxuu shaqaystay ayuu leeyahay maxsharka oo ilaahay agtiisa ayaa la imaanaya maalinta aakhiro walaalayaal qofka laaluushka dhiibo iyo qofka laaluushka qaato dembigooda waa iska mid adduunkan lagama waaraayo adduunkan waa laga tagaa aakhiro dhammaanteena ayaan aadaynaa buunka khiyaamo markaas ayaa la yeerinaa oo dadkiidan ay soo baxayaan ilaahay wuxuu xukmaa qof walba wuxuu oo la shariik yeelay qof walba shirkiga qofkii la shirki yeelay ilaahay jahannama ayaa lagu ridaa ilaahay wuxuu dhahaa liamla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin ilaahay naarta wuxuu ku buuxinaa oo gelinaa jinniga iyo insiga iyo dadka dhammaan wuxuu gelinaa naarta qofkii naarta oo mutaystay ilaahay wuxuu leeyahay faduuquu bima nasiitum liqaa'a yawmikum hada inaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun oo dhadhamiya cadaabta waxaad hilmaanteen ilaahay la kulankiisa oo agtiisa aad aadaysaan maanta idinka waa idin hilmaamay ee ku waara naarta ayaad ku waaraysiin ayuu leeyahay ilaahay subxaana caza wajalla haddana waxaa la furayaa buuggii oo ahluljannada ahaayeen ahluljannada buuggooda sida uu qurux badan yahay bal fiiriya ahluljanna buuggooda waa nadiif waa cad ilaahay subxaana caza wajalla qof walba wuxuu mutaystay ayaa siinayaa ahluljannada waa kuwaan ilaahay naga dhigo ahluljanna qofkii oo qof caawina oo gacan siiya maalinta aakhiro ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu qofkaas janno gelinaayo qof walba waxa uu sameeyo oo khayr ah maalinta aakhiro waa arkayaa qof walba uu sameeyo shar maalinta aakhiro waa arkayaa ilaahay subxaana caza wajalla qof dhaafaaya male هايو بر الوالدين هلو نخضو
nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay jannada waxaa ku jira hooyadaada labadeeda cad ama labadeeda lug hoostiisa jannada xagga ka raadsada naqda baariyaal waalidka u naqda maalinta aakhira sidii janna aad ku geli laheedeen weli xisaabta waa socdaa caawin qofka curyaanka ah oo wax aan cuni karin maalinta aakhira ilaahay adigani waxaa kaaga dhigaa ahluljanna ilaahay malaa'igtiisa ayay ku qaadayaan jannadii ayay ku geenayaan aan ku dadaalno walaalayaal jannada ilaahay subxaanahu caza wajalla wuxuu dhahay fii jannatin caaliyah ilaahay dadka wuxuu u ballan qaaday janno aad iyo aad u sarayso laa tasmacu fiiha laaqiyah jannada dhexdiisa laguma maqlo wax xun jannada dhexdiisa ilaa wax fiican maahine wax xun jannada dhexdiisa ma lagu maqlaayo fiihaa caynun jaariyah jannada dhexdiisa waxaa ku yaal webiyaal aad u qurux badan فيها سرور مرفوعة جنة دحديسة وحيالا نعمة أولي قادوك آتكو أركين إيا وأبواب موضوعة جنة دحديسة وحيالا كواب مدك كالكدرا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أهل الجنة أهل الجنة جنة دحديسة وحالو دياريي ميل آد وفيعا أهل الجنة جنة دحديسة وحالو دياريي فراشوين أو غالية إلهي وإلهي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أو أدوكم يا دور نيسان أدوك وادمانا لكن آخر أيا باخني مبران إلهي سبحانه عز وجل وحانو بلان خاذي جنوين وآديات أفربضا إلهي وحانو بلان خاذي جنة ليراهدو باب الصلاة جنة ليراهدو باب الصدقة جنة ليراهدو باب الجهاد جنة ليراهدو باب الريان جنة ليراهدو باب الإيمان جنة ليراهدو باب التوبة وحاك لنو بلان خاذي إلهي جنوين بدن جنة ليراهدو دار الجلال جنة ليراهدو دار السلام جنة ليراهدو جنة المأوى جنة الخلد جنة النعيم جنة الفردوس جنة العدن دار الخراب إلهي وحوليهي ادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون قال جنة أدينك إيو حاسسكينا إيكو راحيستا جنة وحالة هلا ياريهيسا ذهب يالو كوبب أو ذهبه إيو وحي نفتاها عينيسته إيو وحي إندهاga soo jiidanayso jannada wax walba ayaa laga helaa oo ilaahay dhahay yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waabwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfusu watalabu alacyunu waantum fiiha khaaliduun ilaahay waxaa inoo ballan qaaday janno ilaahay subxaanahu caza wajalla waxaa noo ballan qaaday janno ahluljanno wax way cunaan wax way cabaan waxni ma tufaan ما سحروران أهل الجنة ما كاديان أهل الجنة بديت كودا ما وريسو أهل الجنة بديت كودا وحي كعرف بدنتهي مسكيغا إلهي سبحانه عز وجل إيو وحانو بلن خاري جنوين آدو بدن أو هل كان أنكسو كوبي كيرينين فيلم كان وحالغو ترجمي أما وحالغو هبيي استوديو سافي أو كويا لدلك التليانيغا قارهان مغالبا بابا إيو ولكن أصلح أبا صافي